بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ka salaameynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed annagoo munaasabadan maanta ah uga faa'iideysanayna inaanu u mahadnaqno kuna bogaadino xukuumadda federaalka ee Soomaaliyeed guulaha la taaban karo ee laga gaaray mashruucii deyn cafinta Soomaaliyeed sanadihii la soo dhaafay dawladda federaalka ee Soomaaliyeed waxay ku jirtay halgan aad iyo aad u baaxad weyn oo ku aadan sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deymaha faraha badan leh ee ku horgudban in Soomaaliya ay ka soo kabato burburkii faraha badnaa ee ku soo dhacay isla markaasna loogu abuuro shacabka Soomaaliyeed shaqo saameyn ku yeelan karta boqolaal kun oo Soomaaliyeed nolol maalmeedkooda waxaa xusuus mudan in khubaro Soomaaliyeed iyo khubaro caalami ah iyo ergooyinkii shirweynihii Embagati la isugu wada tagay dalkaasi Kenya ay ka soo baxday in Soomaaliya aysan fursad u heli kareynin inay ka soo kabato burburkii ku dhacay ilaa iyo inta laga cafinayo deymaha balaayiinta dollar ah ee lagu leeyahay guushan taariikhiga ah ee maanta dalkeenu hantay waxaan ka marakacaynaa in mas'uuliyiin iyo shacabkuba aysan muddo dheer rumaysnayn in la gaari karayo hiigsiga ah in deynta laga cafiyo Soomaaliya laakiin waxaa si hagar la'aan ah uga shaqeeyay oo runtii ku mintiday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliyeed mudane Xasan Cali Khayre oo ku bixiyay juhdi lixaad leh kuna qanciyay dhammaan hay'adaha dastuuriga ah kuwa maxalliga ah sida ganacsatada Soomaaliyeed dowlad goboleedyada iyo dhammaan bulshada rayidka ah in loo midoobo qadiyadan qaran iyada oo laga ilaalinayo in la siyaasadeeyo shuruudo iyo habraacyo aad iyo aad u adag ayaa dawladda federaalka Soomaaliya la hor dhigay oo sare loogu qaadayo dakhli abuurista kaabayaasha dhaqaale isla xisaabtanka iyo korjoogteynta maamulka maaliyadda mideynta dakhliga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa mideynta aragtiyada qaranka ee ku aadan kamiro dhalinta himiladan ummadda Soomaaliyeed waxay dhashay in mas'uul walba iyo hay'ad walba ay isku xilqaanto oo dhexda u xirato si midaysan looga wada shaqeeyo heer federaal heer dowlad goboleed gobolka Banaadir bulshada rayidka ah dhammaan hay'adaha qaranka oo dhan sidii looga miro dhalin lahaa halganka ku saabsan deyn cafinta waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee canshuurta iyo dakhliga dalka soo geliya sida wanaagsan ee ay ugu hagarbaxeen barnaamijkii xukuumadda ee deyn cafinta sarana loogu qaaday dakhliga iyo wax soo saarka dalka sidoo kale waxaan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed sida hagar la'aanta ah ee looga shaqeeyay in si midaysan loo dardargeliyo loo diyaariyo xeerar waxa weeye lagu kaabayo barnaamijkan deyn cafinta ah sare loogu qaadayo kalsoonida beesha caalamka ah ay ku leedahay maamulka maaliyadeena iyo la dagaalanka musuqmaasuqa intaba doorkii laga wada qaatay mahad balaaran ayaan u jeedinaynaa waxaan magaca golaha shacabka iyo shacabka Soomaaliyeed aan mahad balaaran u jeedinayaa hay'adaha caalamiga ah ee hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka sida hagar la'aanta ah ee ay xukuumadda uga shaqeeyeen sidii Soomaaliya loogu fududeyn lahaa inay hesho dhaqaalaha lagu maalgelinayo waxa weeye dalkeena kaabayaashiisa iyo soo nooleynta dhaqaalihiisa iyo barnaamijka cafinta deymaha faraha badan ee Soomaaliya lagu leeyahay maanta waxaan dhihi karaynaa Soomaaliya waxay ka soo gudubtay shuruudihii iyo caqabadihii hortaagnaa ee deyn cafinta dhammaanteed waa laga soo gudbay waxaanu si sharaf leh isugu bogaadin karaynaa shacab iyo dawlad intaba in aanu dhabar adeegnay dhaxdana u xirannay sidii looga bixi lahaa barnaamijkaas Soomaaliya shuruudaha loogu dhigay aad iyo aad ayaad arrintaas ugu mahadsantihiin waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa maanta oo ay bangiga horumarinta Afrika uu Soomaaliya u fududeeyay in laga cafiyo deyn ka badan 120 milyan oo dollar arrintaas oo dhex martay wasaaradda maaliyadda iyo bangiga horumarinta Afrika
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dhammaan qaybihii bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba ee Soomaaliya gacanta ka siiyay sidii looga cafin lahaa deynta. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.